gudaha magaalada Muqdisho isla markaana ay ku soo qabqabteen qaar ka tirsan ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya wariyeena magaalada Muqdisho Cawil Abuukar ayaa tafaasiisha warkan magaalada Muqdisho inooga soo diray howlgalkani ay sameeyeen ciidamada dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya oo lagu sugay amaanka Muqdisho ayaa noqonay howlgalkii ugu koowaad oo ay qaado dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed howlgalkani maanta ayaa waxaa horkacay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde howlgalkan ayaa lagu soo qabqabtay qaar kamid ah ciidamada dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya iyagoo xilliga mariyay gudaha magaalada Muqdisho isla markaana aan sidin dareyskii loogu talagalay ciidamada dawladda mar aan la kulmay wasiirka isagoo howlgalkani ku jira ayaa waxa uu iga warbixiyay ujeedada howlgalkoodani maanta ciidankan iyo gaadiidkan aad jeedaan waa ciidan loogu talagalay inay sugaan amniga magaalada Muqdisho kadib markay bateen burcad aan la garanayn cidda ay tahay oo dadkii hantidoodii iyo naftoodii ay la nabadgeli waayeen ayaa qaranku wuxuu go'aansaday oo madaxweynuhu ugu horeeyo ciidankan in la sameeyo waana maalintii afaraad maalintii saddexaad oo ciidankaanu ay maaragtay diyaarsanaayeen waxayna howlgaleen maalintii labaad oo maanta ah insha allahu tacaala inta amnigu ka sugmaana way sugi doonaan ilaahay idankiis ayaga iyo kuwa kale oo diyaar ah oo xoojina oo maaragtay insha allah ilaahay idankii haddii culays ku yimaado loogu talagalay inay xoojiyaan sidoo kale Sheekh Yuusuf ayaa waxa uu ii sheegay in howlgalkan socon doono ilaa amaanka magaalada Muqdisho oo noqonayo mid la isku halayn karo isagoona intaasi ku daray in ciidamada ay qayb ka qaadan doonaan qabqabashada dadka ku caanbaxay samaynta raashinka bisil xilliyada bisha barakaysan ee Ramadaan runtiina waxay kale ka shaqeyn doonaan bishii Ramadaan oo insha Allah bila rabta haddii ilaahay na gaarsiiyo waxaa la mamnuucay oo dawladdu mamnuucday in aan wax cuntaha bisil oo la cuno aan la gadi karin oo maqaayadaha la xiro meelahaas la xiro waxay marka arrintaasna way ka shaqeyn doonaan iyagoo kaashanaya maaragtay ciidamada kale ee qaranka ilaa ma amnigu sugmo oo gabadhu dahabkeeda ay laamiga la marto ninkuna oo qofkuna walbana rag iyo dumar oo si xor oo shakil aana hantidiisa meel walba runtii 12 qorina waa lagu qabtay iyo bastoolad maanta kaliya lagu soo qabtay iyo 8 nin sida uu sheegay taliyaha howlgalka Colonel Maalin kuwoodka soo siiyay runtiina waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala ummadda Soomaaliyeed runtii guriyihii baa aan mucaaradadu noogu timi oo islaamihii markii aan u tagnay waxaan ugu dhacday in ay natuureenana dheen biilkiiba waa naga qaateen naga tag marka arrintaasu haddee waa arrin cid walba u baahan annaga aana ugu horeyna dadka dhanaana u baahan marka waa arrin ilaahay idankiis dawladdu amar ku bixiday amarkii dawladdaanaan fulinaynaa aniga iyo saraakiisha kale iyo ciidankuba Cawil Abuukar Universal TV